وتضوي طبعا كبيشة جمعة الأولى سنة كنا 1447 تاريخ ذا هجرية ذا وصباح جمعة ميلادية ذا ما يكون بيجانتاي تضبط بيشة كوي طبعات سنة كلام كل شان إلى باطن تضبط وجوه وين برنامج كنا أروري مساكة وحكم ذا وجود بين مدحوينا هذا الكامريكان كدونالد ترامب أي حقيقي إن عيدا كإسرائيل يجري أهم بقزك بحدونان جارهان يلو لاين isla markaana lagu bedelaya ciidamo gaar oo ka imanaya dalal muslima macluumaad cajiib oo arinta ku saabsan ayaan idin hayaa saaka qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamida ciidamada Mareykanka gaar ahaan saldhig weyn oo ay ku leeyihiin gudaha dalka Mareykanka Maryland ciidankii ku sugnaa ayaa la suneeyay qaar badan oo kamida ciidankii halka joogay militariga Mareykanka ayaa isbitaal la dhigay sheeko yaab loo halka ka dhacay ciidamada la sumeeyay waxa saldhiga ka dhacay ayaan macluumaad cajiib ah idinkaga soo diyaariyay qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynay iyana waxa kamida Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay xasuuqa Suudaan ku lug leeyihiin isla markaana dacwo looga gudbinaya maxkamadda dambiyada dagaalka ICC waxaan idinkaga diyaariyay iyana macluumaad ku saabsan waxa lagu haysta Imaaraadka oo sidoo kale lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen dabin loo dhigay dadka reer Gaza maxay tahay dabinta ay dhigeen khiyaanada ay ku sameeyeen dadka reer Gaza iyadoo faahfaahsan ayaad maqli doontaa guud ahaan macluumaad walwal oo ka imanaya gudaha dalka Suudaan qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaan idinku hayaa madaxweynaha dalka Suuriya Ahmed al-Sharaac iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada ayaa gabi ahaanba laga saaray liiskii argagixisada cunaqabatayna uu ka qaaday UN-ka xilli uu ku aadan yahay madaxweynaha dalka Suuriya dalka Mareykanka gaar ahaan Washington haddaba iyana waad maqli doontaa iyadoo dhammaystiran wargelin muhiima ma jeceshahay waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan tegi karin xaramka barakeysan in loo gudo acmaasha cumrada wax ka yar $300 ayaa lagaga soo imreenayaa waalidkaaga shirkadda Taqwa ayaana ku samaysay qiimo dhimistan waxaa lagu soo duubayaa qaabka ay cumradu u dhacday iyadoo ay ku qabanayaan shaqadan culimo diin aqoon durugsan u leh haddaba wixii faahfaahin kala soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa Hajj and Umrah soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa Kow Somali Media aynu ku bilowna barnaamijkeena aroornimo saakay oo subaxnimo jimcaha waa maalin kale oo dadku reer Gaza ay ku dukanayaan jimcaha salaada jimcaha masaajidyo burbursan iyo barxado bannaan kadib markii militariga Israa'iil muddo 2 sano gaaraysa ay duqeyn ku wadeen gudaha marinka Gaza iyadoo Israa'iil lagu eedeeyay dilka dad badan oo reer Gaza isla markaana inay xasuuq ka geysteen gudaha Gaza isbitaaladii ay burburiyeen masaajidii iskuuladii iyo qaybo muhiim ah oo adeega bulshada dadka reer Gaza haddaba maantay waxa uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in militariga Israa'iil laga saarayo yellow line oo kamida qaybaha ay kaga jiraan Gaza gudaheeda ciidanka Israa'iil kadib heshiiskii Sharm el-Sheikh maamulka Netanyahu ayaa waxa ay ka dhisteen yellow line sarab waaweyn oo sidii xuduudda ahayd iyo dhismayaal dhaadheer oo ay ku kala barayaan Gaza qaybaheeda laakiin hadalka uu ku dhawaaqay Donald Trump ayaa waxa la sheegay in uu hadalkani ku soo aaday xilli ay wasiirada arrimaha dibadda dalalka Turkiga Pakistan Malaysia iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay Qatar iyo Sacuudiga ay dhammaan sheegeen inay diyaar u yihiin in ciidamadooda ay u diraan gudaha Gaza si ay uga mid noqdaan ama ay u hogaamiyaan ciidamada nabad sugidda ee halka loo dirayo haddaba hadalka Donald Trump ayaa aad loo soo dhaweeyay lamana garanayo maamulka Netanyahu inay u hogaansami doonaan in kale dhinaca kale Trump waxa uu fariin u diray Hamas oo uu sheegay haddii ay u hogaansami waayaan heshiiskii Sharm el-Sheikh ee dhigay in wajigiisa labaad Hamas hubka ay dhigaan waxa uu sheegay inay cawaaqib adag kala kulmi doonaan wuxuu sidoo kale sheegay dawladaha nabad sugidda inay diyaar u yihiin halkii ay Israa'iil kaliya dagaalami lahayd inay iyagana ka garab dagaalamaan ma sheegin dawladaha diyaarka u ah inay Hamas la dagaalamaan ee ka imanaya banaanka Falastiin dhinaca kale xalay waxa uu Trump ku dhawaaqay maamulka aqalka cad in dawladii ugu horeysay
ee ku soo biirto Abraham Accord inay noqonayso dowladda Kazakhstan oo isla markaana la sheegay inay diyaar u tahay in ciidamo nabad sugida ay u dirto Kazakhstan madaxweynaheeda oo jooga aqalka cad Mareykanka looga taliyo Kasim-Jomart waxa uu qaaday tallaabo gudaha Kazakhstan la yaab dadkii reer Kazakhstan ku noqotay markii uu saxiixay in dalkiisa uu macdanta khayraadka dalkiisa uu ku wareejinayo shirkada Mareykan in ay maamulaan gabi ahaanna dhaqaalaha intii ugu badnayd uu gacan galiyay Donald Trump. Kazakhstan madaxweyne Kasi waxa uu sidoo kale saxiixay in dalkiisa uu noqonayo mid u hoggaansamay heshiiska Abraham Accord oo loogu raadinay Israa'iil ee xiriir la yeelato dowladaha muslimiinta. waxa arinta hore u sii sheegay koor intuusan Donald Trump ku dhawaaqin aqalka cadna looga dhawaaqin ergeyga gaarka Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff oo sheegay in dowlad muslima ay ku soo biiri doonto Abraham Accord xilligaasi ma sheegin dowladda laakiin hadda waxa ku dhawaaqay Donald Trump oo sheegay in dowladdaasi ay tahay dowladda Kazakhstan oo isla markaa macdanteedii dhaqaalaheedii wareejisay waa yahay dhanka kale walaalaha qiimiga lahow dowladda Kazakhstan dadkeedu boqolkiiba 9 waa muslim oo waxa lagu tiri dowladaha dadka muslimiinta ay markaa ku nool yihiin ama dowladaha muslimiinta ay xisaabsan tahay waa yahay qodobka markaynu meesha ugu gudubna walaalaha qiimiga leh waxaynu toos ugu gudbaynaa maxaa ka dhacay saldhigga militariga Mareykanka ee ku yaala Maryland saldhiggaasi waxa la sumeeyay ciidankii Mareykanka ee halka ku sugnaa oo waxa isbitaalka loo qaaday tiro badan oo kamid ah militariga Mareykanka ee halka ku sugnaa sida ay qorayaan dhammaan warbaahinta ka soo baxda Mareykanka iyo qaybo badan caalam kamid ah warbaahinteeda waxa la sheegay halkaasi in lagu arkay budacad oo la soo dhigay ilaa hadda lama xaqiijin cidda dhigtay budadaasi ama waxaasi cad ee sida burka ah ee la soo agdhigay meeshaas Maryland base-kaas ama saldhiggaas militariga kadibna waxa xanuunsaday qaar kamid ah dadkii goobta ku sugnaa hadda warbixintu waxay sheegaysaa in loola cararay isbitaal oo isbitaalka yaalaan oo ay dadkaasi aad u liitaan durbaba waxa la xiray dhammaan buildingkii ama dhismihii iyo dhismayaashii ku dhawaa oo dhan si loo yareeyo khatarta sunta in ay faafto waxa baaritaan lagu wadaa cidda keentay suntaasi waxa looga dan lahaa iyo sababta loo beegsaday saldhigga militariga Mareykanka ee ku leeyahay gudaha dalka Mareykanka waxa ay ciidamada Mareykanka hadda wajahayaan militarigooda cabsi weyn haddii ciidankooda gudaha dalka Mareykanka lagu samaynayo saldhigyadooda la beegsanayo su'aashu waxa ay tahay maxay noqon karaan ciidamada Mareykanka ee markaasi ku sugan banaanka dalka Mareykanka waxa aad u sii batay cabsida Mareykanka ay wajahayaan gaar ahaan militarigooda tan intii uu dhacay dagaalka Gaza Trump waxa lagu waramayaa in uu Mareykanka u abuuray colaad iyo cadowtinimo aad u badan iyadoo dagaalka bariga dhexe lagu eedeeyay in uu halista ay wajahayaan uu kor u qaaday iyadoo horey loo weeraray dhowr jeer hore saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe tusaale ciidamada Mareykanka ee ku sugan xaybaha Yemen ayaa la duqeeyay iyadoo markii dambe Mareykanka uu ogolaaday inuu la heshiiyo Xuutiga si ka madax bannaan Israa'iil si uu Xuutiyiinta duqeyntooda uga badbaado taas oo la sheegay inay ahayd darbaxa ku dhacday maamulka aqalka cad dhinaca kale Iran waxa ay duqeysay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay Qatar iyadoo taasi ay cabsi weyn gelisay saldhigyada Mareykanka bariga dhexe waxaana dhowr jeer oo hore la beegsaday saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Ciraaq iyadoo dhowr jeer oo horena heegan la geliyay saldhigyo muhiim ah uu ku leeyahay Mareykanka bariga dhexe dhammaan dhacdooyinka waxa ay la xiriiraan waxa ka socda Gaza iyo weerarka Israa'iil ay ka wado marinka Gaza muddadii 2 sano ahayna ay ku dishay dad badan oo reer Falastiin iyadoo lagu eedeeyay arintaasi inay ahayd xasuuq haddaba weerarka Yemen iyo Mareykanka waxa uu la xiriiraa kan bariga dhexe Israa'iil weerarka ay ka wada Gaza Lubnaan wuxuu la xiriiraa Gaza weerarka ay ka wada Israa'iil Iran wuxuu la xiriiraa weerarka Israa'iil ay ka wada Gaza dhammaan waxaas oo dhan waxa la sheegay inay yihiin wax xiriira haddaba
maraykanka hadda waxaa ka socda doorasho oo aan ahayn midda madaxweynaha gobolada maraykanka waxaa isbedel weyn uu ka dhacay xubnaha la dooranayo ee gobolada maamulaya iyadoo xisbiga Republicanka doorashooyinka hadda socda waa xisbiga uu ka tirsan yahay Donald Trump khasaaro weyn uu ka soo gaaray oo xisbigaasi oo sudhac weyn uu ku yimid dhanka doorashada iyadoo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga uu aad u bogaadiyay guusha ay hadda gaarayaan xisbigiisa waxa uu Barack Obama uu maartay isla markaa sheegay in loo baahan yahay dadaal inta ka badan si Trump iyo kooxdiisa aqalka cad looga wareejiyo saaxiibada iyo walaalaha qiimiga loo labada qodob markaynu meesha uga gudubno waxay noo soo socdo laba qodob oo xiiso leh xaalad yaab leh oo ay Suudaan hadda ku sugan tahay Imaaraadka oo eedeyn weyn loo haysto dhawaan maxkamad la hor keeni doono ama dacwada faylka la gudbinayo Turkiga iyo Masar oo iska kaashanaya inay u gargaaraan ama ay u hiiliyaan militariga dalka Suudaan qodobada iyo kuwa kale aad ugu imaan doontaa madaxweynaha dalka Suuriya oo ay qaramada midoobay ka saartay liiska argagixisada marka hore walaalaha qiimiga loo waynu ku yaraha kano نفس سوتيس ومشروع دسمة عسرية أو لقوة وضد شناد حافظة باغلانس نيروبي كينيا وحوالبو هادو باهنتها waxaad ka heli kartaa nafis suutis adigoo aan meel kale ba waxba ka doonan waxa uu dhow yahay isbitaalka caanka ah ee Aga Khan University Hospital Aga Khan Primary School Aga Khan Sports Club iyo City Park Market mashruucani waxa uu ka kooban yahay apartmentsyo aad u qurux badan waana 2 qol 3 qol iyo 4 qol oo isugu jira fadhi iyo qolka shaqaalaha iyo jiif guryahani waa kuwa loo nashqadeeyay si heer sare ah oo aan la qiyaasi karin waxaana lagu dhisayaa qalab ay tayadiisu ay wacan tahay nafis suutis wax badan ayuu kaga duwan yahay guryaha kale sida muqayf casri ah oo la jaan qaadaya cimilada jikada waxa ay leedahay qalab lagu filtreeyo biyaha kulul oo nadaafada jikada loo isticmaali karo hadaba wixii faahfaahin intaasi dheeriya kala xiriir nambarada shaashada aad uga jeedo si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sareeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub waa rajaynayaa inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan madaxweynaha dalka Suuriya Ahmed al-Sharaa ayaa lagu waramayaa in laga saaray liiska argagixisada golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa hadda ka saaray liiska dadka loogu yeeray argagixisada sidoo kalena cunaqabatayntii ka qaaday madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa oo sanad ka hor ahaa mid kamid ah shakhsiyaadka loogu doonista badan yahay adduunka iyadoo qaraarkan uu Mareykanka horgeeyay golaha ammaanka uu ku soo aaday xilli la filayo inuu toddobaadka dambe Sharaa booqasho ku tago aqalka cad si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sanad ka hor ninkan Mareykanka ku raadinayay 10 milyan oo dollar ayaa hadda loo ridi doonaa madaafiic lagu soo dhaweynayo salaan sharafna la siin doonaa ciidanka aqalka cad ee Mareykanka wuxuuna noqonayaa madaxweyne Sharaa madaxweynihii u horeeyay ee Suuriya ee booqasho rasmi ah ku taga aqalka cad muddo dheer ka dhinaca kale muuqaalka idin muuqdo waa qofka labaad ee golaha ammaanka qaramada midoobay ay maanta ka saareen liiska argagixisada lagana qaaday cunaqabataynta waa Anas Xasan Khatab oo ah ninka salaada tujinaya oo ah wasiirka arrimaha gudaha Suuriya kaas oo Mareykanka cunaqabatayn saaray sanadkii 2012 waxa uu hadda ka mid noqonayaa dadka sida weyn loogu soo dhaweynayo gudaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu awood u leeyahay in qaramada midoobay uu ka dhaadhiciyo qofku isaga Mareykan uu doono in cunaqabatayn la saaro qofkay rabaana ay ka qaadaan cunaqabatayntii hore la saaray Ahmed al-Sharaa iyo kooxdiisa waxa soo jeediyay oo ka dambeeyay Mareykanka haddana waxa aqliyadaas iska lahaa isla Mareykanka oo ka dhaadhiciya qaramada midoobay in laga saaro liiska argagixisada isaga iyo qaar badan oo kamid ah golihiisa wasiirada haddaba intaan oo dhan waxa lagu waramayaa in mid kamid ah muhiimadaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu ka leeyahay Suuriya inay tahay in istaraatiijiyo weyn uu ka yeesho Suuriya oo ay kamid tahay
saldhigyada Mareykanka oo ay ka mid tahay Suuriya oo laga dhaadhiciyo in Israa'iil ay cilaaqo weyn la yeelato Abraham Accord uu qayb ka noqdo waayo aad buu Mareykanka arrintaas u dareynaya xiriirka Carabta iyo dowladaha muslimiinta Israa'iil in laga dhigo mid la aqbalay